السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن معامل كسو دغو halkani waa dhagaxshil min tuulis oo diin soo bandhigta alaaba qalabka macaabinta maanta halka waxaan ku sharxi doonaa insha Allah taala GR 1000 ayaan ku sharxi doonaa insha Allah taala sida arkaysaanba halkan waxa idin mataqaana idin saaran barnaamijyadii insha Allah taala waxa weey badhanka guduudka waa baawo mataqaana musuta on iyo off hey halkan waxa idin saaran mataqaana baawo mataqaana musuta baawo kaleeshadii on teedi weeye iyo baawo off sidaas oo kale halka waxaan arkaynaa mataqaana laba badhan iyo badhankan saddexaad sidaas oo kale waxaan arki karnaa meeshan gold gemstone diamond iyo mataqaana silver oo halkan waa remote control keeda aad arki karaysaa insha Allah taala remote control kan marka waxa weeye halkan baa ka shiraysaa haddii aan rabo marka inaan geysto mataqaana silver oo kaleeto badhankan aan taabanaya isaga halkan u boodi doona insha Allah taala waxaan sameyn doonaa marka insha Allah taala sida caadiga mashruucii waxay leedahay depth-geeda mataqaana kusoo kaleeto distance-geeda waa 100 mitir 1 mitir waa 1 mitir ilaa mataqaana 100 mitir ay wax ku sheegi karaysaa sidaas oo kale mataqaana muxuu ahaa filaartan hoos u socota waxa weeye depth-geedii waa hoos weeye waa 1 mitir ilaa 25 mitir ayay gaari karaysaa insha Allah taala halkan waxaan ku wadataa mataqaana anteenadan oo soo dhexaysa insha Allah taala sidana aad mataqaana ku baxsan karaysaa insha Allah taala waa dheeraysan kartaa waa nala kartaa halkan waxaan ku wadataa anteenadii kale tanana waa anteenadii weyneed halkanina waa jaajarkii insha Allah taala jaajarkii ku wadataa insha Allah taala sidaas oo kale badhankan ama mataqaana remote control-kan isna waxaad ku arkanaysaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala wuxuu leeyahay mataqaana masuuta kan oo charger-kii ah iyo kan oo anteenada ah ayaa ku arkanaysaa insha Allah taala waxaan sameyn doonaa marka mudana macaamiil mashiintii hadda waan shidayna haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala haddii aan rabo marka mitiradan inaan ka geeyo waxaan sameynaa wax kale maahan mashiinta ayaan shidayaa kow power on sidaas oo kalena waan shidi doonaa insha Allah taala markaan shida kadib waxaan imaan doonaa mataqaana waxaan rabaa inaan depth-gii gaaro depth-ga intee laga gaaraa badhankaan aan riixaya hal mar ayaan riixaya ila soco waxaa ii saaran hadda mataqaana masuuta waxaa boodaya 53 waa ku sii daraya 50 mitir aan saartay waa sii day doonaa waxaan gaarsiin doonaa mataqaana masuutahay 40 ilaa mataqaana masuuta 40 oo kale hal mar aan riixaya ayaan mataqaana kala aadi doonaa insha Allah taala 40 iyo kana waad ka jari kartaa badhankan anoo isticmaalay 41 haddaan kor u wadayna badhankan isticmaalaya maxaan ka dhiganayaa konton oo kale aan geysan doonaa insha Allah taala konton aan geysan doonaa hal mar ayaan riixi doonaa insha Allah taala hal mar ayaan riixi doonaa waa ii geysan yahay hadda waxaa ii saaran depth-gii baa mataqaanaa distance-gii baa ii saaran 50 mitir ay ii saaran tahay haddii aan rabo marka xagga mataqaana masuu tahay depth-ga inaan saaro kanoo distance-gii waa mataqaana masaafada isku weerka oo mataqaana xagga dhirka ahay kana geysanaya kan ayaan riixayaa wax yar ayaan gacanta ku xajinayaa ilaa uu boodboodka ii sameeyo kan maxaan geysanaa 5 mitir 5 mitir aan geysanaa insha Allah taala 5 mitir hadda waa arkaraysaa 5 mitir aan geysanaya si aan uga baxo maxaan sameynayaa hal mar aan riixaya cadaadis yar aan saaraya waa kan وإيسارين إن شاء الله تعالى هذا محاسب عندنا مشيتوا واحد إيسارن هدي له إن شاء الله تعالى شغلي بقى بلارتي وهو قبضنا إن شاء الله تعالى سيدا عادي قاع كان قبضنا هل كان واحد كويس سنة ده كاس عادي هل كان مذهبه وحاسب عندنا مركي إلى صعود مدن مع عميل وحاسب عندنا مشيتوا واحد قال دولتا ده بحقه يجري إن شاء الله تعالى إنه يجلس هذا الجماعة وأجي كذا صدق ماشي وجرو واركن ده كان قال دونا هدي له إن شاء الله تعالى إلى صعود ده كي واكن dhinac caskal ayaan geey doonaa mashiinta inay reesato ayaan laga rabaa nala soco waxaan sameeyey dahabkii ayaa xagga iga jira waa wareeji doonaa dahabkii gacanta aan ku hayo halkan hoosaan keeni doonaa insha Allah tacaala waxay samayn doontaa maxaa waaye waxay samayn doontaa macnaheedu maxaa waaye mashiinta way dul taagantaha waaye mashiinta way dul taagantaha ii sheegaysaa mashiinta wareegaysa waa ujeedaan isaagii way joojinaysaa sababta maxaa waaye dahabka ay ku wareegayso waa kaasana insha Allah tacaala ila soo markale haddii aan rabo inaan ka wareejiyo waa ka xagga ayaa isticmaalaa haddii doona maxaa waaye waa dahabkaas waa maxaa ii saaran meeshan ii fiiri waxaa ii saaran maxay yihiin mashiinta waxaa ii saaran dahab baa ii saaran hadda mataqaana masuutahay dahab baa ii saaran
ذهب إيسار وأركل سماشا ذهب عن دورتي ذهب إيسار إن شاء الله تعالى ذهب كحقيقي يلا مرة ذهب كوا كمان ذهب كوا كان إذا صار يعني راعي سمشنت إن شاء الله تعالى وأركل سا هل كسان جد هنا وإلا صعتا حاجة بيصد هنا إن شاء الله تعالى مشنت وأدي حاجة كلا تجعلت كلا تروح وهي جعلت كلا أنا وهي ودول جند هنا إن شاء الله تعالى وكان sababtuna maxaa waaye waxa ay ku wareegaysanaysa maxaa waaye waa dahabkaas ku dhawey inta mataqaana aad ugu dhawey insha Allah taala waa mataqaana masuulta ku wareegaysanaysa waa dahabka insha Allah taala iyadoo sida u wareegaysa dahabkii maxaa sameeyay waan ka fogeynayaa waxa aadi doontaa mataqaana masuulta meesha dahabka jira insha Allah taala la soo mashita inta aadi doontaa dahabkii meesha jiray dahabkii to jira dahabkii waa kan jiha kale aadi doonaa insha Allah taala adoo fiirinay مشيتي ماشي وجدنا وجدنا ان شاء الله تعالى يلا وين الصوت انت قاعد دونتا ذهب كان وكا waxa ku wareegaysa wadaadkaas markaan dul imaadana maxay sameyn doontaa waka leeso kaas shidaysa intaas waxa ku aragnay insha Allah taala mashinta sida loo isticmaalo oo waxa ku tijaabinayna dahabkaas aan arkay wassalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh